كودي يقول وليه تاسو wax badan qof ahaan waxay iga bedeshay wax badan horta waxaan rabaa first ummadda Soomaaliyeed ee aaladan isticmaasha TikTok-ga ee waxa weeye jid hubka dhiga ma ariya ii duceynaysay inaan iraahdo waad mahadsantihiin gebi ahaan adinkoo isku duuban yaan la iga xumaan dad waxaa jira si qaasa saameyn igu leh sidaan aan ugu aaminsanahay dad ehel ii ahaa oo macnaha qoys waxa laga yaabaa dadaal iyo waqti aysan igelin inay igeliyeen dadka waxaan rabaa si qaasa inaan ugu mahad celiyo magacyadooda sheego yaan la dhihin marka hadhow waa ka afeefanayaa yaan la dhihin garyaqaan shakhsiyaad gooniyo taabtay ummadda guud waan ugu mahad celiyey laakiin dadkaasu waqti igama seexan hal daqiiqo qadka igama bixin juhdi iyo waqti dadka markaa magacaabo kadib oo magacyadooda aan sheega kadib waxaan ku dhawaaqi doonaa xarigayga maxaa ka jira garyaqaan waa la dacweeyey waa la xiray garyaqaan ma sharci la'aan buu u soo laabtay oo waxa weeye Mareykanka ummadii Soomaaliyeed ee malaayiinta aheed ee laga soo celi jiray ama adduunyada aheed ee laga celi jiray sharci darrada loo celi jiray qaabkiisi ma loo celiyay mise reer baa dacweeyey mise qof baa dacweeyey taana waa ka hadli doonaa waxaan kaloo ka hadli doonaa gobolka Banaadir markii aan imid wixii aan ugu imid iyo waxaan kala kulmay saddexda qodob oo quseeya leefkaygu waxaan ku hormari doonaa marka hore sidii horeba intii ogeed way ogeede waan u mahad celinayaa dadka Soomaaliyeed ee ii duceynayay ee garab taagnaa ee ila dadaalay waan u mahad celinayaa dadka aan carabaabi doono aalada dadka ku jira gooniyaan u carabaabi doonaa ee ila dadaalay ee jeclaa mar inaan banaanka arko dadka real life-ka xabsiga igu soo booqanayay dhaqaalaha ila garab taagnaa lawyer-ka ila garab taagnaa maalina aan telefoonka iga bixinna si gooniyan ugu mahad celi doona ayaga tan guud marka laga soo tago ummadda Soomaaliyeed qadka yara xun shaashada garaac okay number 1 horta walaalkay nin la yiraahdo wadnan garanayn aaladan aan ku jirin nin walaalkay ah oo la yiraahdo Ibrahim Diiriye the first one Ibrahim Diiriye waxaan ku leeyahay saaxiib walaal jire oo tusaalaha tahay waanad mahadsantahay secondly gabadha la yiraahdo ay koris filsan adigana waxaan ku leeyahay adeer waa mahadsantahay waxa ay muujisay walaalnimo kuma ilaawi doono inta adduunka korkiisa saarana guulaysan ku leeyahay walaal qaali sharaf baad leedahay walaalnimo diimo waxaan ku xijinayaa gabar aan reer ahaan igu gurman asxaabnimo iyo wanaag naga dhaxeeyay ila dhimanaysaa jirtay gabadhaas waa gabar reer waqooyi ah dadka laba ma taqaanaa qalad in la ii fahmo ma rabo waa gabar reer Somaliland waa gabar isaaqa waa gabar garxajisa rodo waan mahad celinayaa rodo qurux rodo halkaan ka salaamayaa guulaysan ku leeyahay walaashay madaas Soomaaliyeed ee 3,000 oo qof gaaraysa hortooda waxaan kugu leeyahay waa mahadsantahay rumahantii waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyarada kaleeto dad kaleeto waxaa jira ehelkayga ah oo dhalinyaro oo ma taqaanaa micnihii ila dadaalayay oo dalka joogay
mataqaanaa sida nimanka ilma xareed cali foonge profiler ninka walaalkiisa la yiraahdo mataqaanaa dhagacade mataqaanaa aarka baxdo ma garanaysaa wili cadaado milyan raaja dhammaantiin adinkana waa inay maxad celinaya dadkaas waa sidii dadka qaaska sida qaaska iga warqabay ee xaaladeyda meesha aan ku jiray ila socday soconaynaa waxaan u gudbaynaa media ayaan soo gelaynaa media markaan soo galno ninbaa codkiisu wuxuu iigu yimid ankal dadka yara low ah shaashada ii garaaca shaashada ii garaaca qadka iga culus shaashada ii garaaca waa mahadsantihiin dhiga waa mahadsantihiin qadka iga culus Soomaaliya waa iska low waa ogtihiin Soomaaliya waa iska low internetkeedu iska digada marka igu qaata internetku waa iska yara beerta qolal yara hormuuda xaran iskaga haysata internet lama taqa xitaa waa u tagay cabasho waa ugu tago waxaan idhi live aan gali rabaa ka qurxin yiraahdeen internetka waxay qurxiyeen male waka waxay qurxiyeen male waka gaduudan qodmano tarafi karaam isla joogna waxaan u soo gudbaynaa wixii aan ka tagay mataqaan dadkii sida goonida igu yimid waxa kamid ahaa ee xabsiga ugu soo booqday intaan ugu gudbin dhalinyarada miidiyaha ilka casaqays boqorka raabka maata waa maya wadman sart hobiya isqabooji ilka casaqays dalaja halkaana kaaga mahad celinaya niimo xaaskiisa halkaana kaaga mahad celinaya adigana guuleyso familkaas waxa weeye waa sharfan yihiin waa la dadaaleen meel kasta waa ila tageen they tried inay mataqaanaa dee garab istaagaan waa mahadsantihiin aan leeyahay sharaf baad leedihiin dad badan oo aan miidiyahan dee maalinta nin walba ay ka jiiftaa la isgarab qabtaa oo codka la iskugu heeliya hanti la isma siiyo dad badanoo ayaga uga dhowaa oo aan mataqaanaa xitaa codkii ugu kaalmay waayay anigii macnihii gadaal iga garaafeynay oo aan wanaajiyey aad iyo aad waxba maaragta gocasha tari mayso hadda waxa weeye iska laan dheereen كادي اللي بعيدا نعلن كل واي قال نوغو دغا ان شيكده بوغنو شكر كده ولاش ان عبد ضبان soo xasuusanaya dhafarka ugu badan raali ahaada gabadha leeyahay jagac dhagac iyo gabar kale oo leeyahay ina oreey oo reer qurdhaalaha jirta sacad reer qurdhaalaha oo ayaguna jeelka dhowr mar igu yimid igu soo booqday aad ila gubanay aad bad mahadsantiina leeyahay dadkaas waa dadkii real life waa u soo socdaa miidiyaha waa u soo socdaa dhalinyarada miidiyaha waa u soo socdaa ila dadaalayay xogtoodu isoo gaartay akhbaartoodu igu timid jeelka intii jeelka igu timid iyo intii aan hilmaamay iyo san qalad iyo arkin macnaheedu shakhsiyaadka hal iyo baqul fikirkaan rabaa waa oga ummadda Soomaaliyeed gabi ahaan way ila gurmadeen wallahi familkayga tihiin waxaan kaga walwalayaa sidaan familkayga uga walwalayo qof kasta oo miidiyahan jooga ama qof kasta oo Soomaaliya maanta waxaan uga walwalayaa sidaan familkayga uga walwalayo la jimin baa tihiin hadda Soomaaliduna gobonimada waa la isku yaqaanaa gobonimada waa lagu yaqaanaa Soomaalidu markii ninka ragga uu gadgalo de qofkii gunaha ganuunaca qofkii goba wuxuu yiraahdaa war ninkii inuu gad buu galay qaabkeen uga saarnaa ilaahay aanu barin wax kala daana tari karo nin walaalkay waxa jira Leila Hussein rag miidiyaha u gudbiyaa Hussein Awji Hussein horta arrin yar rabaa inaan kaga taabto intaan mahad celinta gaarin Hussein waa runtiis telefoonkan isku jirna been ma sheegin maalinta la xirayo telefoonkan ugu jiri marka xaaladda ila fogaatay ee waxaan isla ninka ka nixin waad soo laaban kartaa waa intaas oo soo laabatay ninka ha ka nixin
oo dadkii ha ka nixin oo midii ha ka nixin oo waxaadan macnaheedu salkooda aadan ogaanin hala soo boodin waa la xiray hala soo boodin ilaa moogta dadku moogta maalin kasta in la jahawreeriyo ma dadka ina waxaadan hubin u sheegtid ma waxa la rabaa dadka inaad u sheegtid wax aad hubtid marka hawl baa noo wada socotay nimanka wada hadal baa noo socday office baan tagaynaa ee hawsheenu sida darteed waxba uma sheegin Xuseen oo waxaan idin telefoonka iga daayay asaga iyo waxa soo wacay Adnaan Model iyo ninka la CK iyo asaga ayaa group igu soo wacay marka aad bi igu soo celin groupka waa aragtay markii aad qofku ku soo wacayo uu kugu soo laalaabanaya raaleen tafin raaleen guri soo walaalkii marka waan ka dhacay oo waxaan uga dhacay nimanku waxay ugu yiraahdeen office baan tagaynaa waan wada hadlaynaa wixii ku soo baxad qaadanaysa halkaasaan ku soconnaa marka rag hortii lama jabo culurtii lama jabo aan isiri balaayaha sheegi aadan hubin salkeeda marka waxaan iigu sina waliba waa canaanta naga daayaan ku iri telefoonka nacaladan ku dhacday maxaan ka qaldan dhowr maray igu soo celiyeen marka Xuseen uu iga warqabay oo maalinta la xirayo telefoonkan isugu jirnay Xuseen awji waa nin la jana guuleysan ku leeyahay saaxiib mirafyo yar oo leeyahay oo wuxuusan sugay maahane waa nin balaa waa nin qalbi wanaagsan oo xeerka ragga yaqaana laakiin cilada jirtaahu odagu habeenuu dhafraa subaxii soo galaa asagoo labada injood xinjir yihiin oo naarta ka shaqeeya وفاء بلا قوليسو قرنيسا وما سنتا شرف يا كرام قوليستا دنانتي شاشة يقرأ كو أفرتن يسديد كونوا قفاتيين أفرتن يسديد دينا كون الصوماليات شاشة يقرأ قعنت سارة 6 مليون لمريسين ميل متشوكتين قد كوحنا نقع لصينا وشاشة حمضة طلعت كرش مركا waxa weeye ninku cilad kala male waa nin rag ninka marka waxa weeye waxaan leeyahay waa mahadsantahay Xuseen sharaf iyo karaamo in adeer nin raga oo ila gubanayay oo ma taqaana dhibaatadayda iyo ama waxa xaaladda aan ku suganahay markaas ay damqaysay inaad heeda bareensana ninka halkaas uga haraya Xuseen waa ku dheeraadan maleynaya ayga nin leeyahay ayga kulli ninka codkiisa u baa taqaaniin dadka qaar inay garanayaan ay amno show ayaga ninka la yiraahdo ninka kaliibkiisa xabsiga la igu keenay dad soo booqda ii daaray waan hadalka heli og deganna nimankan ree adeera waan arkay intaan media ka bartay ninkii ugu deganaawe hadalka xidintiisana yaqaana horena u sheegay anoo xabsi gelin hore u sheegay ninkaas waa nin raga boonti nimankaas waa habeen uu tacsi u diray fiidiyoo la ii keenay clip laga soo duubay isbitaal uu ragaliyay rag buu isbitaal hadal ku gashay maalma dhana la qanuudayo walaha waraa ninku waa nafahmi marka ninkaas waxaan leeyahay si gooniya wajigiisa ma aqaano xitaa sawirkiisa gadaal waa soo saari lahaa ninkaas waa nin raga oo xeerka ragga yaqaana oo habargidirtii goobteeda ah guuleysan leeyahay thank you nin la yiraahdo Easty oo ma hasantaan leeyahay waa nin balaa waa nimankii saaqahaayo ma taqaana hadalku nimanku waa heli og yihiin gartana waa yaqaanin marka ninkaas waxaan leeyahay waa هاي sidoo kale hadii alla ku weydmay nimay adag sidoo kale to guuleysan leeyahay ma taqaan Khalid Mulla aadiya jabra sidoo kale to dhammaan dhalinyarada de inta wax galka ah dadka de xasharaadka lama rabo Ayub Karla waa ma santahay dad soo qorteen aadiya saasada ma garaac dhammaan adiga dhammaan dhalinyarada ma kala qaadayo media inta comment ku digle team TV-yada dhammaantiin ay ma kala saarayo waxaad ii muujiseen gobonimo haddaan qabiil sheego
وأنا إذا هذا مركي هبل جديد تلاقى تبو يريح حاجة سلامة قبيل بنو عن دريمي نية هان إني إلى جبنية حوجا هدان شيء قضب بانك قال الصومالي ذا كليته وحيلا قريسي لكن روما هانتي عن دريمي يا غير كاسو شرف بانو هيا بدن كود رجود الببليك فيجر ده dadkooda caadiga ah kuma ku dhiglahoodu dhammaantood waxaan dareemayay inay aad u jeclaayeen inaan xorriyadeeda helo marka xoogaa godob inaan gala mar rabo inaan ma taqaana dadkii si qaldan maaragtay bixir iga uga bixiyo ma doonayo walaal marka dhammaan Soomaalidii ila dabqanaysay waad mahadsantiin Allah gabar baan ka tagay sorry gabar baan ka tagay gabadha aan ka tagay ee iga qosli siisay ee dadka video ku karbaashtay ee mucjisada ah gabadha la Mrs. Johar wala dheere gob dhashay duu jiro qof goba waa qof dun leh jawad bataan leh adeer ama abti dad waxaa jira miidiyahan jooga oo dadka kala yaqaana qofku ama ha caytamo ama ha joogo ama comment ha qoro ama qofka hadii ba la yaqaano dad waxaa jira uu miisaaman yahay oo aan lagu sali karin qofka waa muumin laga dhaadhici karin jira haduu qofka uu akhriyo gabadha aqli badan qofka dadnimada ku dhex jirto dunta lehna way taqaanaa way garanaysaa marka guuleystaan leeyahay Mrs. Johar inaad gobonimo qaran sidoo kale to dhammaan ka ii soo qoraysiin si guud ah ugu mahad celinaya Soomaalida dhammaanna waa u mahad celinaya wixii aan ka tagay gadaal uga soo laabo doona sheekooyin kale to xabsiga waa inay hayaa waxaan u gudbaynaa qodobkii ahaa garyaqaan ugaaniyo salaamiya garyaqaan yaa xiray qodobkii ahaa ayaan dul istaagaynaa okay qodobka ugu muhiimsan waa qodobka waxaa kaloo dhan waa iska mataqaan makeediba cabditaaj waa ka xumaay inaan magacaaga xusi waayo hilmaan hadal kuma jiro odagu waa dhafray cabditaajir iyo ninka la yiraahdo haddii alla ku idmahayo ninka la yiraahdo إيشك عبد التاجر نين كلا إيجام مكان وحوي يقول رجية إلا سوق قبضة نين كلاته ده جسود يا عبد التاجر قد ما سنت أوكي إيدي جناد أوكي قولي سو شاشة قراء إن واحد وجود بيا أوصل لعبة دونا وحي أنصح حصوصته لأن يرى ميديا هتشوكتا محمد داود نك عن رادين هو محمد داود هذا أم عصتها هذا كان قولي سو الله إن حرّوا مركا كريقان يا حري قلب كائنا نقول بان ربع دول استاذ إن قلب كاسو ودول تاجنا كريقان والله حري بدك قف شرعية كانه إذا مرة إن نروح أفسره أو عن وبلابين دوكومنتي شرعي وضن شرعي قف كي قانا وما فهم لكن ده بدنا واحد نقول شيء عامة عن قربت تجين ذلك إسكت شوجة دل جوج وحي لو شيغا اسكا قاتا جيرا حبر هدي عندو فكر مريم هدي عندو تفتو اسكا امني ولي عندو فانتو تيدي waxay noqotaa dheeman kuwa iska aaminay oo kule wallahi waa suurtagal go kule oo aan balaahin ruuxan maxaa ka dambeeya xagee wax u socdaa magaranaysa hadda marka waxaan rabaa aniga waxaan arkay video uu soo bandhigayo ninka leeyahay East
anigu kiiska aan ku eedaysnaa wuxuu ahaa immigration case ma ahayn criminal immigration case ayaan u xirnaa. midda labaad gobolladu Mareykanku waa kala duwan yihiin. gobollo waxaa jira aan lahayn detention center wax la yiraahdo ee dadka lagu xiro immigrant-iga ah ee immigration-ka u eedaysan. gobollo aan lahayn ayaa jira. Minneapolis ka mid ah detention center ma leh. waxay leeyihiin jail bay kireystaan. Minneapolis jail bay kireystaan. wixii immigration jail loo geliyaa hawshooday halkaa ku maraan, maxkamadahooday ku maraan. hadda iyo dan aan wax yar inii soo koobo. anigu waxaan u xirnaa immigration case, uma xirnayn wax criminal case ah, uma eedaysnayn lawyerna uma hayr garaysan inuu iga difaaco. waxaan u hayr garaystaa lawyer immigration case waana wax ku dhaca malaayiin dunida daafaheeda ka timaadee dalka Mareykanka ka timaada. wax garyaqaan gooni ku ahaysan ahayn, wax ma taqaanaa dee si gooni isaga loola raadsado ama dad ay ka bedeli karaan ama wax ku dari karaan ma ahayn. wax ummadda caalamka ka timaada aan ma taqaanaa la sheergareynayay ay la qabaan. midda labaad anigu markii la xiray amar waxaa jiray soo baxay dalmayra islaamiga amar soo baxaa jiray oo ahaa qof darbiga ka soo tallaabay bishii shanaad. amar soo baxaa jiray qof darbiga ka soo tallaabay ilaa uu maxkamadiisa ugu dambeeya maro uu ama tarxiil helo ama uu helo inuu dalka joogo oo la sii daayo sharci la siiyo inaan la sii day karin sharci ahaa aniga ugu dul dhacay. aad baan u nasiib badanahay aniga, aad baan u nasiib badanahay. ilaahayna waa ugu shukrinaya. waxaan isla soconay dhalinyaro 2 sano soo dhamaystay, 2 sano soo dhamaystay weligoodna aan Mareykan arag. dhalinyarada waxaa ku dhacay kiiskoodii ku dagaalameen, maxkamaddii ugu horreeyay ku dhaceen oo finalka ahayd, abiil ay qaateen. abiilku wuxuu ku soo laabtaa ugu yaraan 9 bilood jawaabtiisu. after 9 bilood jamaal salaam ya waa after 9 bilood ayaad maxkamadiis arkayd. markii ama waxa uu leeyahay maxkamaddii hore inay raacdaa maxkamadu inta badan abiilku. maxkamaddii hore waxay tiri ay inta badan raacaan. adigana waa laga qaadan karaa, adna waa qaadan kartaa abiilku. xogaa yar loo yaraan soo noqday maalmahan dambe. marka anigu waan fikray waxaan dhahay garyaqaanow haddaad jaal dhex fadhiisatid 9 bilood abiil ee ka bacdi denied lagu siiyo haddana maxaad faa'iida? 3 bilood kaa baxda. 2 bilood waxaan sugayay deportation, 3 bilood aaba ku dhameeyay maxkamadahayga. qofka ugu waqtiga yaraayay jeel ku jiraan ahay immigration. aniga marka meeshana de Mareykan waa iska raaxo jeelasheedu, raashinka lagu dhex gadaa, dukaamaha ku dhex yaala, telefoonku waa ku yaala, moofigu waa ku yaala, dee waxa masaajidku waa ku dhex yaala. hawshaada iska wadata nadaan baa yaala meesha, dee ilmo iskuma qaldama liinka raaco. marka anigu midda kale waxaan helay time aan nafteeda kula hadlo, ku cibaadaysto. dee xaalado badan oo markaas aan ku dhex jiray aan uga gudbaan helay. rumaantii meeshan jeel markuu qofku galo waxyaalo badan ku soo kordhaya nolosha. qasaara dadka qaar u maleeyaan. nadaam baa laga bartaa, bulshada sida loo ixtiraamo lagu soo bartaa. ma maleekantid subaxii markaad soo baxdid oo qolal kale iska furo, dadka barxadda fadhiya hadday kaa soo horreeyeen waa inaad qof walba salaamtaa. haddaadan salaamin qof adigana ku salaamaya qofku ixtiraamaya ma jiri doono, waa lagu wada fiirinayaa. so waa inaad qof walba tiraa good morning, good morning, good morning, good morning. ixtiraam, respect. micnaheedu qasab ma, laakiin adiga ma sugaysid ixtiraam. macnaha tomorrow lagu ixtiraamo ma dhowraysid. so micnihii waxay ku tusaysaa, macnaha waxaan ka hadlayaa dadka qaar waxay ka aaminsan yihiin jeel markay maqlaan waa shoogaya, waxay u maleeyaan meel dee dhibaato. wallaahi dad kuwa gaaladaana diintooday ku dhagaan oo gaalnimadooday ceyrsadaan
kuwa muslimkaana muslimnimadooda ciirsadaan salaad igama tegin markaa meeshaa ku jira waa iska cibaadaysan hawl baan iska watay dadna meeshaani qeeliyay oo ay dembiga iga kala yareynayay aniguna cibaadaan ku jira dhalow tusbaxaan haysta anyway meesha experience ayaan ka soo bartay rag badan isku baranno Soomaaliyeed isla soo qariibno isla nimid waxa weeye markaad arrinka ah baa dacweeyay وليسو والقال ولوفيا الله waa ka taga gabadhan gabdhihii ila dhintay ka mid tahay oo dhiiga ila shubay oo dheecaanka ii shubay ayay ka mid tahay waa ilaawi I'm sorry waa dhafarka iga batay xaalada igu magaciisoobay igu qaadan in adeerka oo iska hawriis iska wataan ay iska kay qaado wada ii samritir wariga guuleyso marka waxaan ii sheegay arrinta jeelkaan rabaa waxa la yiraahdo arrinka jeelka halkaas aan uga harayaa waxa weeye silaan dheernimo leh ayaan ku soo baxay qof Soomaaliya qaab uu ku soo bixin ku soo wallahi wala la warsa karaa waxa ila socotay 8 qof aan dalka Mareykanka uga soo baxay 8 qof bes aan uga soo baxnay dalka Mareykanka oo private chatna kaga soo qaad waa sumo wataan diinta islaamka ka baxaa 8 qof oo qura private chatku waa diyaarad kuraasteed iska soo horjeedaan sidii far carabeedka guriga dhex yaala ma ahan diyaarad ay kuraasteed isdaba fadhiyaan 8 qof aan ahayn yar sacada yar cayra iyo yar laba gaal jecela gabar ma jeerteena allo ada beerka u dhumi yar isaaq intaas ah saddex habeen gidire laba gaal jecela iyo gabar ma jeerteena iyo nin ma taqaanaa ah isaaq ninkii kala iga maqan reerku ahaa ogaadeen inta naasa waxaana laga soo dhax qaaday 800 qof dhaka waxa ku qasbanaadeen inaan bareefa jad nagu soo qaadaan because waqtiga dhacay 3 bilood haddaan oo saxiixa anigu inaan baxayo ee 3 bilood gudaheed lagu qaadi waayo waxa xaq u leedahay wadanka in lagu dhex sii daayo sida darteed waxay ku qasbanaadeen in degdeg noo qaadaan bareefa jad inoo soo kiciyo annagoo soo hurdo baganay inaan ilaaliyay maaragtay oo dadku laayeen ninku waa iska nafaqaysan yahay waa soo seexday anoo soo hurdo bagay aan Nairobi imidniyo soo raaxayst midda kale aan dhax tuurtay ereygan gabdhuhu ila daba joogaan ee kommentiyada lagu qorayo aan war qorayo ma arage ma ayba ma soo amaan suqaar buu noqday waa maxay xal laga wada suqaar buu waa alaab iga dambeysay alaabtaan anigu ma ogeyn sheekadan hebel waa suqaar iyo suqaar baad noqotay maxaa laga wada waxaan figi iyo kuleelkii Afrikaan hadda galnay suqaarka mid baan xala wacay waan ka sii waalayaa mid baan waca waxaan iri war waa maxay tashaki suqaar baa ku qoran meel kaste ujeedada ma liiga leeyahay markaas uu shib iska dhig waa naashnaashi wax xun ma ka baxo yirinayo hawsha waa marka guuleysta suqaarka iga yareeya laakiin anigu sidii san iskaga haystaaho kulli bataqa xaaladaha adduunkan wajahaya hawl badan ay taala marka halka jeelka waxaan uga gudbayaa anigu experience iyo way aragnimo iyo noloshu sida dadku ku nool yihiin ayaan ka soo bartay waxaan ka soo bartay gabar Soomaaliyeed oo waxa weeye ma taqaan waxa uu qaba karin oo xaalad adag ku jirta waqti adag maraysa marka aadan dhihi karin dhigaha laga dhaafo gabadha oo aad waxba ka bedeli marka run ahaantii way aragnimo in maaragtay xooga aan ku meel mari karo wax weyn ma adiga wax dad saas u badan meesha kuma jirin ayaan ka soo bartay halka arrinkaas halkaas aan ugu gudbiyaa jeelka waxaan u soo gudbaynaa gobolka Banaadir baan kaga dhacaya gobolka Banaadir ayaan idin dul istaagaya horta ma sha Allah communicate ku waa iska yaraa oo dad maan wici karin oo ma dhigi karin waa soo socdaa iyo midna si emergency aan ku soo baxay
inkastoo qoliyaha nabad sugidda maad salaad أنا أضيع أو متقعنا أرنتي إذا مركز دنبه قايب كم نقضي أنا سفر كي يلا فودايو أيا حقته غير أنا بس وده هلي حقته هلي أنا صاصع وضدك في ملذا قار والشاقي حوي مركز دات إهل وهو بدن ماشي يقول معي مع أيربورك إن يرو قرابة هو صاحب دور عباها يوتيميد أو إمام جود البشر ريحة السليمان وهو جاميني إمام بشير إمام دولار من كاسة يويميد يدنا يرو ما تقعنا عانا يو ما تقعنا عادي رك سياسيين أو دور حباه وتيرك تشوفي مركان جودها يميد وأن جوري دقي إيدياري أن دقي oo hawshaydu isku kay toostay kadib maxaa dhacay magaaladu xaaladeedu waa nuucma maxaase ka socda wax la yaab lahaa dhacay waxaanan filayn ayaan arkay horta magaalada dadku waa naga nolol fiican dadkan Mareykan ku dhangagaya waa laga nolol fiican yahay والراحيسانيا dadku waa raaxaysanayaan guryaha la degan yahay Mareykan kuma yaalan hal cilada jirta bes cilada wadooyinka jirta wadan jirin guryo motolaalyo ma taqaan hadii alla ku idmay wada computerize alaab suulka ku furmaysa gurmaada iigu dambaysa waxa Soomaaliya wax ku tagaysan la wadan jirin oo habaas iyo siiga indhaha ka ridaysa inta banaanka سلامي ولسو ودان كريم حواسي سيغا إنها كاريدي سألو قرو مرايدا كصوبحي باكوه اسكتم فس بين قرية يعني كبرناك البحر لكن وطنك اسبدل وين كتيرا اسبدل وين با كتيرا وطنك تدكو اسكشف قوو سنية قال لك قضية دولة دادان يردو اشتقايسة تاقار كوو ما تقانا بيزنسي فورتين ولا لديه جاس تيجي دبادة كاتم دي إيدي عن توي دي سروالك إلا قاعد شيء عاو ما جرتو ولا دون قيسنا يامكو سكلوا ما تقانيد لبا ما بيلا نقول بوطابا يقاري يروح ما تقان برادا وبورد بدا ورما حاجة اللي حقيب حكا صعوبة بقال بالجوبية وصدم بالجوبية وفرتم بالجوبية وحكاية تري بدو كوداريها ما بيجرتها بنروش واسكن ازدهانتها لما ميلان وجاء هل ميلنا وكم ميلا سنة ماشي أنا وكش شقيات مقلي ميل كلام وكم ميلا سنة شقة ضبط شقة اللي حسنا وكش شقيات يا ما شقة اللي حسن أنا وكش شقيات هل كاسنا المقلي لما مركب دكو على سكول في سامعنا وابا عندك توزن في سوق ما قرأني سام مركب ودن كا نبات بساك هم مكان شقة وأوفر لذا noloshu waa isbedel weyn ka jirta dhismayaashu guryaha ma malay kartid dadku guriga Faranjiyeera dadka u yaalaba waagan uu ka tagay Faranjiyeer laba ba qoon cid Faranjiyeerka la dhigi jiray cid hal Faranjiyeer u yaal cid hal TV u yaal cid TV ga la dhigi jiray dadkii alaabaha inay wax Mareykan yaalan oo limba ma jirto meesha dukaamada kaaga daran dharku Chinese baa laga gadayaan isla meesha darwado wakaaladu aba Turki ah oo waxaan ku uri magaca baaba dukaama aha Faranba qolooyinka caanka ah ku soo haray in walba oo meel yar u gargaraaday magaciisa ixtiraamka kaaga daran dadku markaad caan tahay caan caannimadaada qurba inaad la joogtid dhadhan kuma leh caannimada daarta inaad dhadhamidid dalka imaw dalka imaw waa lagaa waalaya gibigaagu wax kala isku malaynaysa haddaad aqli yarto maangaab tahay wax kala isku malaynaysa qoon soo daahiraad isku malaynaysa wax leedahay waryaada anigu ma bay taqaaninba gabadha yar tahay ma taqaan la qabowsiga isla bakoorayda sawirkeeda biga la ku hayda waxaan ku wadiye midka kaliya siyaasiga ah kule way ogtahay marfad ya soo ciirtaa checkpoint ku istaagay bal alaab alif video hal mar amaan yar ku tuur
صليدا يا علي جامع جدي ولا شيء ويل كيدي أفتقي كي يراي وكم صليدا مكت كفدا أيقا وبمعني باش ومكت وأفردا مركب مقالدو ومقالب ما تقان حالدي وحا أتكه اللي دي قبيلك حولها نوعا بكوكا يسمى وحا أسكولا كنو كانوا بكم أيام رأينا واسكا فاش عليا وروح عن قدر كشيء وابني يبين عندي بقولني قدر كشيء عن وين كور هاي أميش oh my god إيش وتاجنا وأنا مقلع حتى ما الحين اللي وقف القادي وما تقانا وخلدنا اللي ويري لكن أنا حتى وكسعه أوجيا حبب معنا مركب واحد حكومة دي بيا قولي سو ينادر قولي سو شرف الله سهل يسوع شرفك مركب dalka ayaan u soo laabanaynaa sheekadii aan kaga hayay dalka niyo gas triig badan kama jiro halka waa in ka soo ogaaday waxa weeye hawshiisu waa isku dubaridan tahay waa la iska baashaaraa waa dhalinyaradu waa wada dhuun qabowsadaan dawladda loo shaqeeyaa inay xaaladdu dalku waa sidaa xaaladda dalku waa sidaa waxa ku soo haray garyaqaan حبسي بو قال محا اسكا بدري قريقان جيل بو قال محا اسكا بدري وحي اكسبيرينسيه اي ان سو قاطي وانا هايستا قدرتنا وانا اميسنه noloshuna waxaan aaminsanahay inaysan America kaliya ku xirnay gold meel looga casheeyaa dunida ma jirto pasta iyo bris iyo sariir baa lagu seexdaa pasta iyo laga cunaa sariirna waa lagu seexdaa meel kastoo adduunka joogto hubkani garanaysaa marka mid yar baan idiin sheegaya aniga go'aankii shalay meeshan ka taagnaa qadiyad ahaan qof ahaan iyo hadal ahaan bartii aan taagnayaan taagana qofkii jixinji iga dhawraya qofkii iga dhawraya inaan dhaho wax maan ku iri hadda ka hor Soomaaliya hadda joogaa saa amaleeti garyaqaan waaye ninka ani ma iladag birlab dhalaya iduna wixii sharcan iri waa iri soo noqonaya ونقومي يعني عبرت وقف يان كدو يان كدو ولا لا ما ادري متى عبد ما كودا عليه اوكي